warbixin uu daabacay wargeyska The New York Times ayaa daaha ka qaaday in dagaaladii ka dhacay dalka Ukraine ay cadeeyeen in ciidamada Ruushku ay bedeleen qorshahooda military waxaana ay muujiyeen xirfad heer sare ah oo dhinaca dagaalka isla markaasi adeegsaday tactika cusub. warbixintu waxa ay tilmaantay in Ruushku bilowgii horeba qabsaday gobolka Ukraine kamid ah taas oo ay sabab u tahay awoodda faraha badan ee uu haysto Ruushku balse waraysiyo lala sheegay in 17 askari oo Ukrainian ah maxaabiista Ruushka ee dagaalka saraakiil ajaanib ah iyo dagaalyahano iyo saraakiil reer galbeed ah iyo waliba helitaano dokumentariyo iyo muuqaalo waxa cadaatay in guulaha uu gaaray Ruushku bilihii la soo dhaafay gaar ahaan Bakhmut ay sabab u ahayd isbedel cusub oo ay sameeyeen militariga Ruushku. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in ciidamada Ruushku markii horeba ay ka taxadireen in ay horeeyaan meelaha suurtagalka ay tahay in laga soo weeraro iyagoo inta badan adeegsanayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u ogaadaan gudadka iyo gabaadiyada ay dhigayaan ciidamada Ukraine. tallaabooyinka kale ee Ruushku uu qaaday ayaa waxa kamid ah maxaabiis jeelasha ku jirtay in ay askar ahaan ay u qorteen iyadoo sidoo kale la sheegay in ciidamada Ruushku ay hadda dhinac kasta ka dhameystiran yihiin.